السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن كسر دوادة تاريخ الذهبي الشيخ حسن برسمي هلقما الشيخ حسن شيخ نور شيخ أحمد ولوي يقين شيخ حسن برسمي وحود شيء سنة كيكون سديد بقول كنت ينسد حدي وحونا كل شيء تولد وبادي أو قياسي لحد سديد كيلومتر وجر تم مقالة الجوهرة عاصمة قبل كشبه لذا الدحيح بلشي سوق قرآن كدب وحو علم أدون تي تولد مريري أو حسن oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo magaalada Muqdisho kadib laba mar ayuu soo xajiyay 3 sano ayuuna Sacuudiga joogay halgama Sheekh Xasan Barsame wuxuu la dagaalami jiray gumeystii Talyaaniga halgama Sheekh Xasan Barsame ciidankiisu waxay gaarayeen 30,000 oo askari ayagoo ku hubaysnaa seefo warmo iyo qoryo halka Talyaaniguna ay aad u isticmaalayeen geel aad u tiro badan oo ay madaafiicda ku raranayeen goobihii ugu muhiimsanaa ee dagaalka waxaa ka mid ahaa dagaalkii Buulo Burdo oo dhacay sanadkii 1922 dagaalkii Ceel Dheer oo dhacay sanadihii 1923 iyo 22 dagaalkii Jiliyaale oo dhacay sanadkii 1924 iyo goobo kale oo dagaalo culus oo badan la isaga hor yimid Sheekh Xasan Barsame wuxuu ku caan baxay inuu ciidamada ka barbar dagaalamo asagoo dhiiri gelin jiray ugu dambeyntii Talyaanigu waxay gacanta ku dhigeen Sheekh Xasan Barsame oo dagaalamayo 4 bishii Abriil sanadkii 1924 waxaa lagu xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho kadib markii ay maxkamadda isticmaalka Talyaaniga ku xukuntay 30 sano oo xarig ah laakiin wuxuu ku geeriyooday xabsiga dhexe 3 sano kadib 13 bishii January sanadkii 1927 qoraalada qaar waxay isku raaceen inuu u geeriyooday sun lagu buufiyay xabsiga qolkii uu ka deganay inkastoo la sheegay in xabsiga dhexdiisa aad loogu jir dilay sheekha laguna xiray qol aad ciriir u ah oo mugdi ah Sheekh Xasan Barsame Allah u naxariistay waxa lagu aasay qubuuraha Sheekh Suufi ee ku yaala magaalada Muqdisho kadib meedkiisa ayaa laga saaray waxaana lagu aasay deegaanka Jiliyaale ee markii hore u ahayd xarun saldhig dawladii kacaanka ayaa ugu magac dartay halgamaaga dugsiga Sheekh Xasan Barsame si loo xusuusto halgamaaga